Hogan 24 Media ka dhigo wehelkaaga. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh saaxiibayaal soo dhawaada maanta haddii Allah uu idmo waxaan ka hadli doonaa shuruudaha cusub ee uu soo kordhiyay WhatsApp-ka. Muddooyinkii u dambeeyay waxaa doodo badan ka socdeen baraha bulshada ay ku kulantay social media nidaamka cusub ay soo saartay shirkadda WhatsApp. Qanuunkan cusub ay soo saartay shirkadda WhatsApp waxa ay si toos ah u dhaqan galaysaa 8 February ee sanadan ee ku jirno. waxaa ku soo dhacayso fariin tilmaamaysa qanuunka cusub ee WhatsApp taasoo ah inaad waxyaalaha private-ka ku ah ama xogaha gaarka ah ee aad leedahay lala wadaagayo Facebook. Haddii aad rabtana inaad sii wadato isticmaalkaaga aaladda WhatsApp waa inaad aqbashaa midaas. balse inta muddada ka horeysa fariinta waad iska dhaafi kartaa oo waad xiri kartaa. laakiinse marka la gaaro 8 February kuma shaqeynayo WhatsApp-kaagii. waxaana markaa kuu furan laba waddo oo kala ah inaad aqbasho in xogtaada lala wadaago Facebook ama inaad akoonkaaga WhatsApp-ka aad ku leedahay iska xirtid. haddaba muxuu yahay qanuunkan cusub ee ay soo saartay shirkadda WhatsApp? sida la ogyahay tan iyo 2014 WhatsApp waxaa si hoose u maamulaya Facebook. muddooyinkii dambena waaba ay la wareegeen. mulkiilaha Facebook Mark Zuckerberg ayaa la wareegay Instagram-ka iyo WhatsApp. waxa uuna bishii Oktoobar ee 2020 sheegay inuu wada xiriir ka dhaxayn doono dhammaan mareegyada Facebook sida Facebook Messenger, Instagram iyo WhatsApp. dhowaan waxay isku xirmeen Instagram-ka iyo Messenger-ka. qanuunkan cusubna waxa uu isku xirayaa Facebook iyo WhatsApp. qanuunkan waxa uu qeexayaa sida ay ganacsiyada u isticmaali karaan xayeysiisyada ay la wadaagayaan ganacsiyada kale iyo macaamiishoodaba. balaanu eegno sharcigan cusub ee WhatsApp ay soo saartay muxuu la wadaagayaa Facebook haddii aad aqbashid. qodobkani ayaa ah kan ugu muhiimsan. haddii aad aqbashana WhatsApp waxa uu la wadaagayaa Facebook isticmaalkaaga WhatsApp-ka sida xilliga aad online noqotid WhatsApp-ka, waxyaabaha aad u isticmaasho sida guruubyada aad ku jirtid, statiska waxyaalaha aad soo dhigtid, dadka aad wacdid iyo dadka qoraalka aad kula hadashid, sawirka kuu saaran profile-kaaga iyo weliba qoraalka kugu saabsan ee ku qoran WhatsApp aboodkaaga, taleefan nambarkaaga iyo halka aad ku sugan tahay iyo wixii la mid ah. sidoo kale xogta WhatsApp la wadaagaya Facebook waxaa ka mid ah xogta ku saabsan aaladda aad isticmaalayso iyo khadka aad isticmaalayso sida modelka operating system-ka iyo browser-ka aad isticmaalayso, IP address-kaaga, mobilka ama kombiyuutarka aad isticmaalayso xogtiisa ama modelkiisa. waxaa kaloo intaa dheer heerka dabka taleefankaaga ama kombiyuutarkaaga, xawaaraha khadkaaga iyo abka aad isticmaalayso version-kiisa. haddaba arrinkani dhibaato ma leeyahay? sida inoo cad haa, dhibaato badan ayuu leeyahay. waayo xogahani waxa ay ku kala keensanaayeen laba keyd oo kala duwan kuwaas oo kala ah WhatsApp iyo Facebook. haddii la wadaago oo la mideeyo waxaa la helayaa xog badan oo kugu saabsan oo qaarkood kala duwanaan karaan. tusaale ahaan nambarkaaga WhatsApp-ka haddii uu ku xiran yahay Facebook oo aan magacaaga ku qornayn waxaa la arkayaa kala duwanaanta magacyadaas. tusaale ahaan haddii ay kugu qoran tahay magacyadan soo socda edabsan sidii hooyadeed iyo yarka sanadka, waxaa ka dhalanaysa in xogtaasi aysan islahayn amaba isyeelan. sidoo kale isku xirkan wuxuu isbarbardhig ku sameynayaa dadka kuugu jira WhatsApp-ka iyo kuwa kuugu jira Facebook iyo waxa idin dhex mara guruubyada WhatsApp iyo kuwa Facebook. sidoo kale haddii aad isticmaasho WhatsApp Transaction Services-ka waxa uu Facebook awood u yeelanayaa inuu xogta xisaabtaada iyo nambarka aad isticmaasho ku xiro Facebook-gaaga. waxaana kaloo suuragal ah fariimaha qaaska ah ee aad la wadaagtay asxaabta qaar inay farahaaga ka baxaan oo lala wadaago shakhsiyaad kale. waxayna midaasi keenaysaa in siro badan oo dadka qaarkood u qarsoon lala wadaago dad badan, taasoo keeni karto in qofka dhibaato ay u keento. maxaa tala ah? mar haddii aad aqbashid xogahaagii waa la wadaagayaa, haddii aad diididna waa uu xirmayaa WhatsApp-kaagii. haddaba haddii aad aqbashid qanuunkan cusub ee ay soo saartay shirkadda WhatsApp oo aadan ka maarmin isticmaalka WhatsApp, waxaad ilaalisaa ama xadidaa qoraalada aad diraysid iyo akoonnadaada. sidoo kale haddii aad ka maarantidna waxaad isticmaashaa applicationada Telegram-ka iyo Signal-ka iyo kuwa kale oo la midka ah.
waxaana intaa inoogu eg barnaamijkeennii aan kaga hadlaynay qaanuunka cusub ee ay soo saartay shirkadda WhatsApp oo aan idiin soo tabinaya anigoo ah Cabdulle Macalin Maalto. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad nagu cusub tahay rukuma channelkeena Hogan 24 Media adigoo subscribe na saaraya gambalaalkana furanaya si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee hela barnaamijyada aan soo gelino channelkeena. hana hilmaamin inaad la wadaagto asxaabtaada adigoo share garanaya muuqaalkan. mahadsanid.